إسماعيل سمتر وحسبه ومسبحي أرنتي لاسعانود وحسبه مسبحي تاشك مكاجة شراء waayahay عقلي waayahay rabadaanoo waynu saaraynaaba eedii madaxweynuhu dee maadaama wax walba iminka isagii la saarayo in tanna ku dar waaba kuuma diidani okay laakiin waxaad maskaxda ku darsataa rabadaanow haddaan anigu iminka aanan ku doonaynin kuma soo organisaynayo kumana yeedhan مع madaxweynaha inay bixida xoogaa gadaal ixtisaamihiisa baad ka dhadhansanaysaa kasoo muuqmuuqata isaga laftiisa maalmahan dambe arrinka haddaad aragtiin qof wejigiisa qariyey la baxay buur iyo maaragtaa berri iyo bakayle iyo waxa ixtisaamna ka hadla u cidna buunbuuniya dee waad iska ogtihiin maaragtaa wuxuu yahay af carabigana si fiican u akhrista may fahantay hawshiinina ku socda wuxuu ka mid yahay ninkii dhammaa ee u taagnaa gobolka maxay haytay laascaanood ee maxay tay garaad ismaaciil oo honest u ah waddankiisa ayaa lagu soo qaaday duulimaad oo mabdi'iisii iyo howlihiisii la hor joogsaday kuwaa ayuunbuu ka mid yahay axmed ismaaciil maalin horena waa idinkala hadlay mabdi'iisu wuu bedelay yaan lagu sii tigaalin oo la odhan ama waa kan ama maxay tay isna waxba waayo ninka ragga a marka uu ka go'an yahay go'aankiisu ee uu leeyahay taarget cidina ma bedeli karto xusbi dhan baa loo dhiibay yaa wuxuu sheegan karaa hal adayg ninka la yidhahdo waxaan ka garan karaa xirsi imisaa lagu kiciyey dhibaato imisaa maxay hatay la hor istaagay imisaa maxay hatay haddii la dhaho xirsiyo somaliland oo dhan bay noqotay ayaban bilicsanahay haddana ilaa hadda muuna joojin taargetkiisii mabda'iisii so ninka markay ka go'an tahay axmed samatar hadduu wax qabanayo sidunuu iminka u cabanayo ilaa muqdisho sidaasuu kaga yimi oo u cabanayay so waxa weeye qofkii haddaanay ka go'nayn maxay haytay kartidiisa ama hal adeegiisa ama maxay haytay taargetkiisa ama ulajeedadiisu meeshuu doonaya inuu soo taabto waxa weeye waxa dad kale loo eedayaaba way iska yar tahay hadda ayaan waxaan u sheegayaa wixii maxay haytay mucaarad waa mucaarad laakiin mucaarad xadka ka baxay baa jira waxaan la hadlayaa kuwa xadka ka baxay ee danaha gaarka ah leh ee haddana magacii somaliland rumaysan ama aan kuwa aan rumaysnaynba inay ku soo noqdaan oo dib intay u soo noqdaan hadda maxay haytay isbahaysiga ay ka qayb galaan markaas markaana ma waxbay sii sheegaan inay hadda ka qayb galaan ayaan anugu jecelahay waxaan u sheegayaa dadka ilaa iyo hadda mucaaradka taageersan inaanay waxba taraynin maxay haytay dhibaato dambe maad garanaysaa in la kala taabaco ama soomaaliya ama jabuuti ama jamhado horu socodka la eego ummad dambe oo meel degan lagu kicin dhibaato laakiin hadda hawshan wax lala qabsado way idinka baxeen adeero waan kuu soo celiyey laariyo war faarax iyo xuseen iyo miyaa seexateen war waxaan rabaa nimankan dad kululeeyo oo su'aalaha la weydiiya lario su-aal ayaan rabay inaan weydiiyo intii lasxaanood waxa aabba u ahaa muuse bixi isagaa garaadkii guud ee jaamac siyaad albaabka ka xidhay isagaa caayey isagaa telefoonkii ka qaban waayey isaga iyo inan uu adeer u yahay ayaa qaadkii jabuutaawi laascaanood ku doontay isagaa rasaastii carruurtii ku dhuftay isagaana sabab u ahaa dhibaatadii laascaanood sugsug caqliyay muuse biixi isaga aabba iyo hooyo uu ahaa dhibaatadii laascaanood ka dhacday bilow ilaa dhammaad markaa taa waa laascaanood arrintan axmed ismaaciil samatar isla muuse biixi baa sabab u ahaa muuse biixi baa axmed ismaaciil samatar la hadlay isagaa ku yidhi kulmiye kusoo biir isagaa ku yidhi manifestaha kulmiye inoo qor hal sanad ay ku qaadatay inuu manifesto dhan u diyaariyo xisbiga kulmiye intay sidaa u qaateen ayay xashiishka ku rideen maraykankuu ku noqday markuu maraykanka ku noqday siduu mucaaradka u xumeeyo ayuu mar kale axmed ismaaciil samatar intuu la hadlay buu ku yidhi dee ururadii baa la furayaa kaalay urur ka qayb gal marnaba danta awdal ninkaa shaqo muuse bixi dee waad og tahay inaanu awdal danna ka lahayn laakiin dantiisa waxay hayduun siduu mucaaradkaasuun maaragtaa silsilado ugu xidho axmed ismaaciil samatarna uu rumaystay hargeysuu yimid urur buu furtay
qolyahan kulmiyana way ku awrkacsadeen ninkii Axmed Ismaaciil Samatar iyo ninkan kale ee haas leh isla dhulbahante gudihiisa ayay ku kala jebiyeen maadaama jaamac siyaad uu ahaa ay taageersanaayeen xisbiga wadani wuxuu ku soo kiciyey nin kale oo aan jaamac siyaad ahayn ayuu rabay inuu maaragta inuu xisbi u soo saaro marka arrinta Axmed Ismaaciil Samatar waxa sabab u ah Muuse Bixi arrintii laasxaanoodna waxa sabab u Muuse Bixi taa shaki muu kaaga jiraa waayahay rabadaana waynu saaraynaaba eedii madaxweynuhu dee maadaama wax walba iminka isagii la saarayo intanna ku dar waaba kuuma diidani okay laakiin waxaad maskaxda ku darsataa rabadaanow haddaan anigu iminka aanan ku doonaynin kuma soo organisaynayo kumana yeedhanayo kaalayna kuma odhanayo laakiin haddaan intaan kusibooro aan ku idhahdo anigo waxda qabsano laakiin adigo marba aad leexleexato ood luuqluuqato oo aan dib weliba anigu dib waxaan u jaleecaya muqdisho siduu Axmed Samatar uu ku ahaa ayaan dib u jaleecaya waayo nin ka tegay cidina ma sii dayso Samatarow laakiin haddaad leexleexato intaan kusoo organisayay marba luuqaad ka leexato dhegta wax lagugu sheego maxay tahay meel kale aad rajo kaaga jirto maad garanaysaa marba meel baad ka bixi maxaan kuu soo organisanay marka hore ku odhanayaa kaalay rabadaanow kaalay doorashada ka qaybgal why haddaan marka dambeba lugaha ku jebinayo taa halkaas in yar dib ugu leexo maskaxda marka wax laydiin sheego always wayna tiina aad la kaashataan iyo dheergaratadiina iyo fishankiina thank you walaalo halkaa in yar baan haddaanay jirin cid kaloo maaragtay ku soconaysaa waxaan rabaa in yaroo kooban inaan niyow ka idhaahdo horta waxa fiican in wax walba maaragtay waxaad moodaa waxoogaa daacad darro ah inay jirto oo matalan la leeyahay haddii uu joogi lahaa xag la toosiye ama Samatar cod buu heli lahaa way iyagaa isku ciyaaray laga dhigayo maaragtay dad iyaga isku ciyaaray oo fursadii iska qasaariyay ay ku noqon lahaayeen wax ku heli lahaayeen innagoo waaqaca dhabtee jira uu yahay inaynu ognahay in aanay jirin fursad ay dee isku sharaxaan anaheedu dadkan waxay leeyihiin 5 sano oo dambe xusbi soo noqo halkaas soo carar halkaa waiting listiga iska gal halkaa fadhi after 5 years maybe wixii ba halkaa fursad chance inuu ka yeesho weeye asmaha waxa leeyahay ayaga waxa macna ay sameeyeen la inaad uba diiday inuu sharaxo aad meeshii ka progressay oo soo gali lahaa haddana inaad canaan loogu daro aniga wax too oo maaragtay ummadda qabta ilama eega sidaan markii hore sheegay meeshan jahawareer sharci baa waxaan keenay oo ka dhacay sababteeduna ay ahayd wixii dib loo dhigayay kolba nin waliba intuu doono iskaga dirsanayay 2 sano 3 sano bilaa macniyahoo wax sabab ahoo kalifaysa aanay jirin nimankan xusbiyada mucaaradka khaasatan labadan xusbi ee wadani iyo ucid oo doorasho rabay midi meesha waagu joogo uu hayay waqtigoodii waxa ka cunay waxa dulmay oo waqtigoodii ka cunay kulmiye from Sidaaya to ninka kale meesha joogay oo midba 2 sano uu ka cunay sanadahoodii sharciyan haddii loo noqdo uu baaba'ay nimankaasana ka baabiyey inay iska ogolaadaan oo maalin walba iska soo hor socdaan ma yahayna waxay heedanay joojiyaan markay arkeen waxaan inay iyaga ay laftoodii ay hadhow fursad isku sharaxaan halis ku noqonayso nimanka kale ee xisbiyada watay waxa ay xaq u lahaayeen 10 sano markay sugeen inay doorasho galaan way nimankan iyaga fursadoodii ilaashan waay oo ka ogolaaday in maalin walba lagu dul kordhisto taasi horta wataasoo canaan malabaan qabaa nimankaasi waa laga gabtan yahay haddana wixii lagu xaal marinayo ama lagaga tabatagay ragga afraha badan ee cabashada qaba way fiicnaan lahayd in la sameeyo in maaragtay la iska dhigo weliba dad markii horeba aan fiicinayn ama waxaan aanay daacad ka ahayn anigoo dow maaha intaa marka laga tago 3 waji ee horena u joogay ee wax cusub ahayn yaa wax soo kordhin kara haddii la eego dadani kugu qasabtayo ay tahay arrin choice kale aan la haysan horta dee mid waynu aragnaayo isagoo iska faashil kaasoo wuxuu hayaba dee la tijaabiyo 7 sano 14 sano aan malaynaya inay meesha joogeen waxay qaban karaan iyo dee tamartooda intay tahayba waa la soo tijaabiyey
kama dambaystoodii dee waxaan ceeb ahayn lagama qaadin runta marka la sheego labadan kale mid iyo waxa sawirka ka dhex muuqanayaa waa horta sawir cusub maaha oo waa niman iyaga laftooda hore loo soo tijaabiyo xisbigan ka tirsanaabaa maanta safka hore soo fadhiya taariikh fiicanna runtii marka loo noqdo aan maaragtay indhaha lagu eegin qabyaalada iyo maaragtay nin jeclaysi iyo waxaa la iska ilaawo ah taariikh badan oo wanaagsan aan qaarkood lahayn ama xagga musuqa ha noqoto ama nidaamyo kale oo ha ahaatee aanay markii ay joogeen xukuumaddiisa ilaahay ka mid ahayn aanay ahayn dee niman maanta la leeyahay waxa lagu tumayo fiican xusbigaa markaa ninka cabdiraxmaan waa aniga nin macquul ah oo fiican buu leeyahay laakiin dadkan faraha badan ee maaragtay taariikhdooda hore loo soo arko meesha kasoo buuxisay rakaabka rakaab xumo weyn baa isaga laftiisa kala socota xoogaa nidaam kaloo ictisaamiyi sameeyo waxna waa laga yara dhex akhrisanayaa oo iyaguna meesha kama baxsana inkastoo imanka kuwan xukunka hayaba nimankaasi ay ku jiraan oodka iyaga laftooda aad ka dhex arkayso anigu imankaan idhaahdaba maca madaxweynaha ina bixiba xoogaa gadaal ictisaamiyiisa baad ka dhadhansanaysaa kasoo muuqmuuqata isaga laftiisa maalmahan dambe arrinka kale muhiimka ah ee dadkan dee maanta muhiimka waa waxa weeyaan dhibaatooyin baa ka jira xagga barigo dagaalaha ka dhacay ciidan baa la jebiyey dhibaataa dhacday nimanka xusbigan wadaniyo wax aragti caddaan ah oo maaragtay banaanka taalla oo meesha uu ka leeyahay anigu maan arag nabad waan maqmaqlay iyagoo mararka qaar le nabad baa kusoo ku doonayna laakiin dee sida meesha sawirka meesha ka muuqda anigu sawir nabad wax lagaga keenaayo inkastoonan dee lahayn macnaheedu hala dagaalamo haddana ilama eega mowqif cadoo halkaa ay ka leeyihiin ma arkin taasina waxay noqonaysaa dhibaato kale oo dadkan dib wax dareenka dadka ku jira haddaa lagaa dhex waayo caqabad bay noqonaysaa waxaa soo haray xusbigan dee dadku leeyihiin waa nin keliya ata faysal keliya dee wuxuu yahay waxa weeyaan dadkeenii meesha joogay anusaan qabo dee dhaqaalay rabaan oo lacag bay rabaan markay lacag kaa waayaan siduu isaguma sheegay ama is idhaahdaan dee ninkani malaha fursadu kusoo baxa ma haysto dadku way yacyaacayaan oo labadaa kale ay xaggooda u badanayaan iyo ninkaa taageeradiisan waxaa qabaa inay kor u kacday oo uu ka badnaanayo haddaanu xitaa maaragtay helin intii hore uu heli jiray uu ka badanayo taageerayaashaasna saan qiyaasaayo waxay ka imanayaan labada xusbiyo way ka soo go-ayaan kuwa wadani ahaa markii horena way ka soo go-ayaan kuwa kulmiye ahaana way ka soo go-ayaan oo xaggiisay u kacayaan anu waxaan qabaa inuu yahay the safest bet ninkaasi oo imanka maaragtay labadaa kale marka la barbar dhigo uu yahay qofka uu kaga habboon yahay kastoo dad badan igu khilaafayaan arrinkaa weliba haddii dee maanta uu cidiba ay halkan ku jirto is yaqaanaan ama maaragtay la gaadhsiin karo fariin baan u diri lahaa waxaan odhan lahaa ornayo fikir ka duwan labadan kale la imo oo maadaama dee aanay arrinkaagu adiga laftirkaagu dadkii ummaddiisay wax u codeeyaan aynu arkayno oo laga yaabo mar saddexaad fursadda aad ku dhacdaa ay iman karto dalkiina wuu kuu baahan yahay anu waxaan odhan lahaa jegada madaxweynaha uga tanaasul nin reer awdala adiguna madaxweyne ku-xigeen qaado madaxweyne ku-xigeen waxtar leh oo talada waxbaad ku yeelanaysaa si aad dalkaaga u anfacdo madaxweyne ku-xigeen qaado jegada madaxweynahana ninka reer awdal sii baan odhan lahaa ubaal waxaa noqonaysa haddii uu taladaa qaato inuu codkiisu ninkaa banaanka hoolayo labadan inay kalena ay iska tegayaan marka halkaas baan anigu sidaas baan soo koobayaa oo salaamantii ame aad baad u mahadsan tahay dee cabdirasaaq iyo faarax iyo xuseen runtii
waxyaal badan baa ugu cusub laakiin anigu waxaan waan kasoo qalin jebiyey haddaad aragtiin qof wejigiisa qariyey la baxay buur iyo maaragta berri iyo bakayle iyo waxa ixtisaamna ka hadla u cidna buunbuuniya dee waad iska ogtihiin maaragta wuxuu yahay af carabigana si fiican u akhrista may fahantay hawshiinina ku socda annaga anagu mashquulina rayga ku mashquul rayga xogga saar qofka kaadi ramadaano waxa weeyaan ma maqashay anigu kulmiye ma ihi u cidna waan doonayaa inay soo baxdo kulmiyana waan taageeraa sheekooyin noocaas anigu Huseenow anigiyo Shukuur hoosta ka qoslaya waxaan waan soo qalin jabinay niyo mid baan u naqaanaa warniyo adeer Axmed baa inoo yimi dadkana opinionkooda iyo aragtidooda u daayaan narnala Xuseen iyo Ramadaan oo dadka amaan geliya Axmed adeer soo dhawow meesha waxa maanta joogana mar runahan aqoon-yahano badan oo reer Soomaaliland waxyaabo badan maanaanu iska wareysanaa ka wada hadlaynaa adeer Axmed waa professor reer Soomaaliland waliba awdal ka soo jeeda adeer soo dhawow waxaan ka wada hadlaynaa isbedelka iyo isbedelka sida loo arko iyo waxa maaragtay u baahan runahan in la saxo xitaa ururadan ama xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka aba laftooda in laga sheego maaragtay waxyaabaha khaladka gudololada sida wax loo hagaajinayo soo dhawaada adeer waan dhowahay aadna waan kuu salaamayaa adiga iyo akhyaarta kaleba dhammaantiin waan idin wada salaamayaa dad badan oo kulley akhyaara ayaa halkan iiga muuqda marka dee qof idin yeedhin maayo laakiin dhammaantiin waan idin wada salaamayaa waanad mahadsantihiin horta isbeddel waa muuqdaa adduunyadana isbeddel wuu ka muuqdaa geeska afrikana wuu ka muuqdaa meeshaan degannahay ee somalilandna isbeddel xooga bay u baahan tahay isbeddelkaasi wuxuu u baahan yahay aragti shacab iyo aragti siyaasadeed oo isfahmaya oo dhinac u wada jeeda weliba ta shacabka waa inay xoog leedahay oo awood leedahay weeyaan waayo waxa wax lagu miisaamaa rabitaanka shacbiga Somaliland waa inay ka gudbaan waxa iyaga qaybinaya oo weliba abtirsiinta waa in laga gudbiyaa waa inay iyaguna ka gudbaan weliba dhalinyartiina yaryar waayo waxaan ku soo koray iyadoo dadku qabiil yahay oo aan ku soo shaqo tegey waxbaan ku soo bartay laakiin it was a painful and regrettable waayo aniga iyo ku yaryara anu meel kaartid kuwa la yidhaha waan ku dhashay kuna koray dadkii aan wada koray mostly waxay ahayn dad isaaq nasiib darrada meesha dhacday waxa weeyaan aniga iyo saaxiibkay soo wada koray ayaana lagu kala kaxeeyey abtirsiin iyo reer waa markaan dalka u shaqayn lahayn in wada jiri lahayn in ka tashan lahayn wanaagga ummadda yada iyo dalka yaga aan ka tashan lahayn ayaa waxaana la kala kaxeeyey waxaana lagu kala kaxeeyey adigu reer hebel baa tahay adigu reer hebel baa tahay waa heblaayay islaayeen waa heblaayaa dhibaato lagu geeyey waxaasi waa waxyaabaha ina haysta ee inoo diidaya horumarka iyo wada jirkeenna innaga oo reer keliya ah oo wada dhalanay oo haddiihan wada ilmaabtiya oo wada habarwadaaga oo wada ilma adeera oo wada gacala in laysku ilaahna kitaabkiisa wuxuu riximka u nahay innagoo isku wada rixima oo isku wada midoon kala maarmi karin kala tegi karin baa waxa la isku keen diray niman cimaamada sita oo raba iyagu inay kugu dul noolaadaan baa waxa ay noo geystay markaa idinka waa nasiib wanaagsan baad leedihiin aqoon baad barateen ka badan kii waqtigaa jiray waxaad aragteen waayo aragnimo dheer oo ka ballaaran tii hore oo awal Soomaalidu in yaroo de waxbarasho dibadaha u tagtay mooyaane dalka kama bixi jirin laakiin maanta dalka waad ka baxdeen adduunyadaad aragteen fikirka adduunyadaad aragteen adduunyadu siday hore martaad soo aragteen inaad dariiqa la maraya uu ka qurux badan yahay oo doog artificial intoo lagu beeray la waraabiyo oo qurux badan yahay baad aragtaa waxay oo dhan caqli baa keenay iyo aqoon baa keentay iyo wadaniyad innaguna waxaan u baahannahay dhulkeennoo barwaaqaa oo gaajahaynin oo beeraheennii jiraan oo xoolaheennii jiraan oo baddeennii jirto oo kalluunkeennii jirto ayaynu ka gaajoonaynaa waxay oo dhan waxay noo keenay eexda iyo qabyaaladda iyo nacaybshaha ummadda lagu dhex abuuray marka waxay oo dhan way dhammaanayaan oo waad aragtaan waxyaabo badan oon arkaa jira maanta dhalinyarta Somaliland degani waxay rabaan inay ka gudbaan waxaasoo dhan oo u gudbaan dowladnimo
kaas bay rabaan marka dowladnimada sidii lagu gaari marka waa in laga wareejiyo kuwa hor jooga dowladnimada ee iyaga qaybinaya kala kaxaynaya kuwaasina halkay joogaan systemkay madax ka yihiin amba ha horeeyaan amba maanta ha joogaan way systemkay ku jiraan systemkaaba waxay curyaamiyeen horumarkii dhalinyarta waxay curyaamiyeen hamigii dhalinyarta waxay curyaamiyeen aragtidii dhalinyarta waxay curyaamiyeen wax kasta oo dhalinyartaasi ku daryeelay waxay curyaamiyeen shaqo abuurkii dhalinyarta waxay sababeen inay dhalinyarteenu duunyo intay raacaan badaha ku dhammaadaan bay suurto geliyeen marka waxaayoo dhan waxa keenaya akhlaaqda qabaliga ku salaysan ee la inoo abuurayo aynan ahayn mid visible oo waxtar leh oo ummadda wax ku soo kordhin karta marka isbeddelkeenu maanta wuxuu u baahan yahay waynu aragnaa election baynu galaynaa waynu aragnaa confrontationka faraha badan leh siyaasadeed ee maantayna dhex yaala sida MOU-ga aynaan garanayn madhalayska ee dhinacu u socdo iyo dhinacu ka socdo aynaan weli garanayn waxay noo macneeyana aynaan weli hayn iyo meeraysiga Ethiopia ee beenta ee kolna Soomaaliya waxaan qaltaagayso marna ay meeraysi ku jirto waan aragnaa marka waxoo dhaniba inuu dhibaatay nagu yahay waan aragnaa waxaayoo dhan waxa abuuraya systemka meesha inoo jooga systemka in laga maarmo oo systemka imanaya hadda la sii wacyigeliyo oo madaxweynaha maanta aan rajaynayno inuu madaxweyne inoo noqdo ilaahayna aan u barino isagana aan la talino oon tusaalayno waxa dalkeenna ka qab oo ugu horeyso qaybintii ummadan la qaybiyey ee la kala dhex dhigay ee la kala kaxeeyey ee qabiilka lagu habay ee intuu ceelka la geeyey ceelka qabiilka laga waraabiyey in ummadda laga soo maydho oo laga soo celiyo meeshaas oo ummadan meel la iskugu keeno oo weji kaliya loo sameeyo kaas baa ugu horeeya waayo ummad aan wada soconin dowlad ma noqon karto horumarna ma gaari karto ixtiraafna ma heli karto maamulkooguna ma hagaagayo ummaddu waa inay waxay wada leedahay lagu qanciyaa waa in laga saaraa waxa lagu qaybinayo oo laga daweeyaa oo la tusaa waxa ay isku yihiin oo waxa ay wada leeyihiin la tusaa oo kaas baan uga baahannahay systemka isbeddelka ma maamulka imanaya keliya samaynaya may idinku waa inaad ka qayb gashaan waa inaad table garaysaan waa inaad dooda qabataan waa inaad jaamacadaha ka qabataan waa inaad dibadaha ka qabataan waa inaad dadkiina awareness gelisaan waa inaad intelligence-kooga siyaasadeed iyo kooga wadaniyeed aad kor u qaadaan waydaydaan ka seexanin inta electionada loo diyaar garoobayo inaad idinkuna diyaarisaan ummaddeena caqligooga iyo awareness-ka siyaasadeed iyo ka wadaniyeed baynaad diyaarisaan ood horey u socotaan ood ummadda isku keentaan idinku gacmaha haysta waayo waxa ummad saxa aqoonyahan raba isagu inuu xukumo uu cunaa madsaxo waxa saxa aqoonyahan ka gilgilanaya dibta ummaddiisa haysato oo raba inuu ka gudbiyo ummaddiisa dhibaatadaas uu ka hor qaado waxa albaabada ku xidhan inuu ka furo kaas marka ummaddu isaga ha u doorato marka inuu hogaamiyo laakiin waa inuu ahaado hadafkaaga guud inaad ummaddaada toosiso ood ummaddaada ka qaado obstacleska faraha badan leh ku xeeran inaad ka qaado marka waxaan idin rajaynayaa inaad arrimaha qaadaan